السلام عليكم ومحي عاجسكو عاجسكو waa awood darro ka timaada maskaxda taasoo qofka ka dhigaysa mid aad u liita oo daal ama culays dareema maskax ahaan iyo jir ahaanba sidoo kale aan awoodin inuu shaqo qabto kana cagajiida dad badan oo ku kala nool qaarado kala duwan ayuu caajisku ka reebay qayrkood oo uu ka hor istaagay inay gaadhaan guul ama si hadaf yeeshaan qof kasta oo caajisku haleelo waa mid rajo beel ku dhaco oo mar walba maskaxdiisu buuq ku furan yahay cabsi badan iyo murugo badanna way haystaan dhalinyartan dambe ee Soomaalidana waa dhibaatadii ugu badan ee haysata qayb ka mid ah kana hor taagan yoolkoodii iyo hadafyadii ay gaadhi lahaayeen maxaa caajiska keena qodob badan ayaa keena caajiska ee bal-aad u dhuux kow dib u dhigashada hawl kasta oo dib loo dhigaa waa mid keenta in laga caajiso ugu dambayntana waa lagu guuldaraystaa laba qorshe la'aan dad badan ayaa waxay ku nool yihiin nolol bilaa qorshe ah taas oo ka dhigtay inaanay dhadhamin macaanka nolosha oo ay noqdaan kuwo cagajiid ah oo aan danayn noloshooda saddex yool la'aan yool inaad lahaato waxay kaaga baahan tahay hawl badan iyo fikir badan inaad geliso haddii aanad yool lahayn waxay kaa fadhiisanaysaa oo shaqada kaa joojinaysaa oo ay shaqada ka joojinaysaa dhammaan qaybaha fikirka ee maskaxda waxaana dareemaysaa caajis taas oo keenaysa quus iyo inaad ka rajo dhigto nolosha gebigeedaba afar dhiirigelin la'aan dhiirigelintu waa shidaalka ugu wanaagsan ee qof kasta ku shaqeeyo haddii aanad dhiirigelin haysan waxa kugu badanaysa cabsida uma noqon kartid qof dhiiran oo yeelan kara kudhac nololeed shan shaqo la'aantu waa waxyaabaha ugu badan ee qofka ku keena caajiska iyo cagajiidka waayo shaqadu waa shayga keliya ee qofka uu ku dareemo isku filnaansho iyo deganaan maskaxeed haddii aanad wax camal ah haynin wax walba waa kugu adkaan doonaa lix kalsooni darro kalsoonidu waa awoodda uu qofku ku qaban karo shaqo kuna hawlgeli karo taas oo saamaxaysa qofku inuu noqdo mid deganaani ka muuqato markasta oo hawlgelayo kalsoonidu qofku markasta oo ay yaraato waxa ku dhici kara cabsi wahsi iyo habrasho toddoba cibaado yari qof walba oo muslim ahi hantida ugu qaalisan ee uu haystaa waa iimaanka cibaadaduna waa shayga keliya ee laga kobciyo iimaanka haddii aad yarayso xiriirka aad ilaahay la leedahay subxaanahu wa tacaala waxaa daciifaya iimaankaaga oo inta aad ilaahay u jirto ayuunba iimaankaagana awooddiisu la eg tahay haddii aad yarayso xiriirka aad ilaahay la leedahay waxaa ku fulaya caajis badan walbahaar isku buuq cabsi aan la garanayn meel ay ka timid deganaansho la'aan diiqaad iyo waxyaalo kale oo badan sideed xanuun haddii uu jidhkaaga ku jiro ama se ku jiro xanuun waxaad dareemi kartaa caajis aad u badan iyo daal xad-dhaaf ah oo maskaxdaada iyo jidhkaagaba saameyn ku yeesha sagaal xidhiirka naftaada aad la leedahay oo yaraada inaad naftaada xidhiirkeeda joojiso oo aad la sheekaysto dareentana cabashadeeda oo aad fahanto waxyaalaha qabadda ku noqon kara iyo waxyaalaha u wanaagsan waxay kuu saamaxaysaa inaad isla jaan qaadi kartaan adiga iyo ruuxdaadu taas oo kuu horseedaysa guul markasta oo uu yaraado ama uu joogsado xidhiirka aad la leedahay naftaadu waxaad dareentaa xanuuno nafsi ah sida shaki badan isku buuq nafeed fahan darro iyo adiga iyo naftaada idin dhexeeya kalsooni darro iyo fikir aan jiho lahayn toban shaqo badan markasta oo aad hawl adag gasho waxaad u baahan tahay waqti nasasho ah oo kugu filan haddii aanad qaadan nasasho wax walba kugu adkaan doonaan waanaad caajisi doontaa 11 balwadaha xun balwadaha aan wanaagsanin waxay ku dhaliyeen caadooyin aan la mahadin qofkana ku keena dib u dhacsanaan iyo nolol dulli ah iyo dameer ximo